maanta qiimaha badan la isku soo baxay maxay tahay ururinta xashiishka degmada Sheekh inagu sugay ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada Sheekh maayirka iyo maayir ku-xigeenka oo maxay tahay arrintan abaabulkeeda iyo qorsheynteeda iyo korfeynteeda iyo maxay tahay wacyigelinteedaba lahaa aad baan ugu mahad celinayaa mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa ururka SASO oo maanta isku soo baxay maxay tahay in ay ka qayb qaataan ololaha iyo maxay tahay nadiifinta degmada Sheekh dhamaantood oo maxay tahay u hagar baxay wada arkaysaa maanta sida ay maxay tahay ay hawsha ugu guntadeen sida hawsha u wadaan ilaahay baana maxay tahay mahad leh kolley waxaan leeyahay dadweynaha degmada Sheekh tan degmada Sheekh leeyahay waxa weeye inaan waxa laga shaqeynaa waa bilicda degmada waxa laga shaqeynaa waa nadaafada degmada waxaan leeyahay dadweynaha reer Sheekh iska wax u qabso ayaa maxay tahay la wadaa iska wax u qabso inaan maxay tahay wax u qabsano inaan degmadeena nadiifino inaan bilicdeeda soo saarno inaan ku dayano magaalooyinka kale ee maxay tahay imikaba ololaha ku jira ee hawlaha maxay tahay ku foogan inaan ku dayano waxa weeye kolley maanta waad arkaysaa ololuhu wuxuu ka socdaa dhammaan degmada oo dhan ururo kale oo maxay tahay ayaa jira iyaguna maxay tahay hawsha wada uu ka koob yahay ururka SASO iyo ururo kaleba dadweynaha waxaan baan leenahay maxay tahay ku dayda maxay tahay dhalinyarta degmada Sheekh ee is abaabushay maxay tahay iska wax u qabo maxay tahay wada volunteer ku shaqeynaya cid maxay tahay lacag ku siineen aan cid wax kale ku siineen kaliya taag maxay tahay ujeedkeedu tahay inay degmadooda bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo wanaageeda iyo maxay tahay iyo dhowrideeda ka shaqeeyaan aad iyo aad baan mar walba ugu mahad celinayaa maxay tahay maamulka iyo maxay tahay ururkaba waxa weeye kolley waxa kaliya laga shaqeynaya waxa weeyaan waa bilicda degmada iyo maxay tahay inay nadiifinee intaas oo soo baxno ay gacmaas qabsano aynu maxay tahay dhinac aynu iska soo jirno ilaa iyo intay ka nadiifinayno ilaa iyo ka heli doono intay ka helayno shiiqo qurux badan shiiqo maxay tahay bilicdeedu hagaagsan tahay shiiqo maxay tahay lagu soo hirto waxa ogtihiin shiiq inay tahay meelaha ugu quruxda badan leh Soomaaliland ama maxay tahay gobolada Soomaaliland shiiq waa meelaha inta badan maxay tahay dalxiiska ku wacan waa meelaha cimiladeedu aad u wanaagsan tahay hadii magaaladii cimiladeedu wanaagsaneed ee quruxda badnayd ee dadku maxay tahay jeclaan lahayn jawigeeda ka heli lahaayeen way arkaan iyadoo maxay tahay xashiish leh iyadoo maxay tahay indhuhu ku siineen iyadoo aan maxay tahay aad yaabayso siday tahay maxay tahay waxa weeye waa inoo ayaan daro si markaa dadna ay soo jiidano dalxiisayaasha si ay soo jiidano maxay tahay bulshada kale si ay maxay tahay indhaha kale maxay tahay gobolada kale ay maxay tahay u soo jiidano waxa weeye magaaladeena qurux badnaysino intaas un baan maxay tahay ku soo gogolnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh inagoo nabadii caafimaad qabnay suukan keenay saaka inaynu degmadeennii ka qayb qaadano ololaha nadaafadda dhammaan kan waxaa jooga dhalinyarta ururka SASO oo saaka ka howlgelayay xarunta dowladda hoose iyo dhakhtarka agteeda toostii xanuunkan marniyo tacadii ciilka marba meel bay taagan tahay maanta waa halkan reer Sheekh waxaan leeyahay isku duubni inagoo ah aan degmadeena mar kasta si wada jir ah wax uga qabanno horumarinteeda hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto nadaafadda marka koobaad haddii aynu isku duubanahay oo aynu dhammaanteen meel u wada jeedno run ahaantii waxaan leeyahay meel baan gaadhnaa saaka wada aragtaayo intaasaynu ugu filan saaka waxqabad oo inoo dhiirigelina dhammaantiin waxaan leeyahay dhalinyarta magaaladana fadhiga ka kaca degmadu waa degmadeennii cidnooma maqna ceelnooma qodna innagunbaa run ahaantii meel gaadhsiin karnaa aqoontaan leenahay haddii maanta ay degmada waxba ka bedeli kari weydo taa macnaheed waxa weeye waxaan nahay dameer malabsidaa waad aragteenoo gobolada kale iyo degmooyinka kale dhalinyartoodu way horumariyaan wax walba isla garab taagan inaguna sidaas leeg waxaan leeyahay dhammaantiin aanu degmadeena horumarino wassalaamu calaykum